أنا وهتطلعوا بحصلي ما لسه قبيل حبيت كورنا روبان هلا شريف هويا حبيت كورنا روبان هلا maamulkii Fardhiye waxay u soo jeediyeen ama waxay ku amreen maleeshiyaadkii maantirada weeraray deegaanada Fiqishin inay ka soo baxaan deegaanada qabsadeen si arinta loogu dhameeyo waan wada hadal waana mid ku gacan saray maleeshiyaadkaasi dan tiimkii Fardhiye waxay isku aadiisteen ciidamo hubeysan si loo weeraro maleeshiyaadkaasi waana mid hadda abuurtay xiisadaan warniyow dagaal diini ma jiro dagaal siyaasi ah jira dagaalka siyaasiga ama wadaad ka yeelanay soo wadaad la nagu dhac isku wanaan mayno ninkii wadaadee dawlad ku xidhan aba cid kale ku xidhno anaguna wadaadkeegaanu yeelanayna uu saxaya ninkan odayga u baahan tahay inay hesho Soomaaliland wadaado aqoonta diimeed ku difaaca wadankooda si la mid ah sida kuwa reer Soomaaliya kuwaas oo ka mid yihiin Sheekh Bashiir Sheekh Omol iyo Sheekh Ali Wajiis iyo qaar kale oo fara badan culimadaasi wixii danta Soomaaliya ku jirta way xalaalayaan wixii danta Soomaaliya ka soo horjeedana way xaaraantimeeyaan tusaale heshiiska MUU waa looga culimadaasi sida ay uga hadli jireen iyo sida xaaraanta ugu dhigi jireen markii dambe Abiy Ahmed uu ka degay xamarna culimadaasi 360 digri ay wareegeen oo qaarkood waxay sheegeen inay tahay waajibaad diini ah geesta kale wareysi uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wareysigiisa wuxuu ku beeniyay inay u yeerteen safiirkooda fadhiya Kenya kadib markii safiirkaasi uu ka soo dhex muuqday munaasabada agaasinkooda la hadlay Israa'iil isagoo sheegay wasiirkani inay ogeeyeen dowladda Soomaaliya safiirkaasi inuu ka qayb galo shirka afakaadhada Afrika isagoo intaas sii raacay wasiirkani inay muhiim u tahay Soomaaliya inay ka soo dhex muuqato shir noocaas oo kale ah safiirkan uu ku waajibaad qaran iyo waajibaad xiriir diblomaasiyadeed isku soo duubo nuxurka wareysigan uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu ku difaacay shirkaasi ay ka qayb galeen iyo mustaqbalka wada shaqayn kastoo dhex marta ayaga oo Soomaaliya ah midnaanku ku daray buuqana hadda socday la diimeeyay ujeedka laga leeyahay waxay tahay in laga abuuro gudaha Soomaaliland kooxo abaabulan oo fikrado diimeed xambaarsan bismillaah saaxiib yeel ku soo dhawaada madal furan anigana waliban maxamed aadan aan ku bilaabay mowduucan caaway inantan hadda idin muuqata magaceeda waxa la yiraahdaa Saadiya waxaana ku magac dheer tahay Bajaaj magacan wuxuu ugu baxay waxay ka mid tahay darawaliinta mootooyinka bajaajta 6 bilood ugu dambeysay intaan waxay ku xirneed magaalada Muqdisho maantana markii ugu horeysay la soo taagay maxkamadda gobolka Banaadir si loo dhageysto kiiskeeda gabi ahaanba eedii lagu soo ogeeyay intaani wax cadaan ah oo loo waayay eedda saxda loo haysto ma aflagaadeen madaxweyne mise gacan waxay tahay wax saxda lagu haysto difaaca iyo weerarka waa dhageysanay waa isku tuureen al-akhiir waxa soo baxday in gabadhii oo waxyaabihii oo lagu soo eedeeyay batatanba oo cadeen caadi ah waa loo waayay macnaha si anaga aan meesha joognay wax cadeen ah oo la soo bandhigo oo gabadha kiiskaas lagu haystaan dhahay ma jirin marka dawladdu waxaan ku codsanahay hadda si degdeg ah gabadhaas in loo sii xorriyadda loo siiyo oo macnaha wixii oo hadda maanta oo lagu haysto oo aan hadda soo aragnay anaga maxkamadda dhex fadhinay batatan marka ma jirto maxay sheegeen ragga soo eedeeyay laba qodob lagu soo eedeeyay oo kicin bulsho iyo aflagaado مدحدي maya aflagaado oo macnaha dadka dawladda ka shaqeeyo dad dawladda ka shaqeeyo macnaha aflagaadaysa la dadkii caawasi oo dadka aflagaadey qof anaali aflagaadey dhahoy ma jiro meesha waa ku fashilmeen caab iyo magac xumana ka raacday Xasan Sheekh maamulkiisa xariga baadilka u geysteen gabadhan maskiinta ah ee yoomkeeda iyo kan qoyskeeda kala soo bixi jirta mooto bajaajta inantaan waxa ka soo jeedahay bahan beesha dareed gaar ahaan biyo maal waxna aaminsanahay bedelkeeda hadii ay ka soo jeed lahayd beelaha wiye habar gidar ama abgal inaysan ku hoyteen habeen iyo xabsiga hadaa doonayso xamar iyo Afrika inaad ku noolaato samayso awood laga baqdo sida soo daawateen baalantan hadda waxa loo haystay kaliya inay ka soo muuqatay warbaahinta gudaha Muqdisho sidoo kale ay ka soo muuqatay akoonada ay ku leedahay baraha bulshada ayadoo duraysa Xasan Sheekh sidoo kale la garnaqsanaysa oday Xasan una sheegaysa ayada iyo carruurtiisaba waa Xasan Sheekh inay u sumeeyeen Soomaaliya xaqna u leedahay sida ay carruurtiisa Xasan Sheekh u noolyihiin inay u noolaato marka laga tago arrimaha musuqmaasuqa iyo qaraawakiilkiisa xun u isticmaalida awoodda dawladeed waa wax ay ka wada sameeyeen dawladaha Afrika oo dhan laakiin lagu kala daran yahay arrimaha ugu waaweyn uguna miisaanka culus ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladnimada Soomaaliya ku faafiyay waxa ka emeed garaac akhlaaqiyadka guud reason public of ethics isagoo madaxweyne ayuu khudbadaha iyo masaajidiyada iyo baarlamaanka hortood been cad umada u wada jeeda ka sheegaya isla asiga ayaa beentaas ka soo laabanayo
tusaale marar badan wuxuu ka hadlay dastuurka haddii la dhammaystiro in teeramkaasi hadeertaa madaxweynaha uu yahay uusan dhaqangeli doonin ee dhaqangeli doonto teeramka soo socday madaxweynaha cusub iyo baarlamaanka cusub asiga ayaa afkiisa ka sheegay khudbado badan oo mashaajidkii baarlamaanka iyo dad shacab ugu jeedinayo kaga hor sheegay bal maxaa dhacay ninkii aadan madoobe ahaa ee hadlay habeen dhabeed dastuurka marka la ansixiyay oo cabdiraxmaan ceent u bixiyay fujiska wuxuu dhahay dastuurku wuxuu bilaaw yahay haddeertaan u dhaqangalaa haddeertaana la bilaaba laakiin mid ogow aadan madoobe hadalkaas iskama dhihine odaygaa usoo dhiibo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa usoo dhiibo dhahay dheh intaana kasii gudin qoobkana sida hadda uu ka muuqato shaashadani beesha caalamka waxay ka deeriyeen walaacna ay ka muujiyeen xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyagoona ugu baaqay dhinacyada siyaasadda garabka xasan iyo garab ka soo horjeeda mucaaradka inay wada fariistaan ayaguna ay diyaar u yihiin beesha caalamka inay dhexdhexaadiyaan si lamida bayaankan oo kale maanta wuxuu ka soo baxay safaaradda Mareykanku ay ku leedahay ee Muqdisho wuxuuna ku soo aadayaa bayaankan beesha caalamka xilli ay ku dhawaaqeen mucaaradka Soomaaliya wixii loo gaaro 3 ilaa 4 bishan Juun inay ka bilaabi doonaan xamar mudaraadii waaweyn oo laga cabsi qabo in isku bedelaan kuwa wata rabshado suurtagalna ay tahaba halkaasi isku hormaad hubeysan inuu ku dhaxmaro ciidamada la kala safan ama la kala socdaba mucaaradka iyo dawladda waana walaaca taagan geesta kale wareysi uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wareysigiisa wuxuu ku beeniyay inay u yeerteen safiirkooda fadhiya Kenya kadib markii safiirkaasi uu ka soo dhaxmuuqday munaasabadda agaasinkooda la hadlay Israa'iil isagoo sheegay wasiirkani inay ogeeyeen dawladda Soomaaliya safiirkaasi inuu ka qayb galo shirka Afakaadhada Afrika isagoo intaas sii raacay wasiirkani inay muhiim u tahay Soomaaliya inay ka soo dhaxmuuqato shir noocaas oo kala ah safiirkan uu ku waajibaad qaran iyo waajibaad xiriir diblomaasiyadeed isku soo duubo nuxurka wareysigan uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu ku difaacay shirkaasi ay ka qayb galeen iyo mustaqbalka wada shaqayn kasta oo dhaxmarta ayaga oo Soomaaliya ah iyo Israa'iil hadee maalmihii ugu dambeysay maamulkooda iyo culimada taageersanba wuxuu ku haysteen Somaliland cilaaqaadka ay la yeelatay Israa'iil midaan wuxuu ku tusinaysaa munaafaqada iyo laba wajiileynta qoliyaha reer Soomaaliya war maanta halgeynkeedu ku jirnay ixtiraafkana wadaadaynu sameysanaynaa maxamed halac kale maanta sameeynaynaa nimankan u xidhnaan mayno waxaan u sheegay wadaadada Somaliland anigu wadaad la'aan mayno wadaad baanu leenahay waanu sameysanaynaa ina sheekh madar baanu ka hadlin doonaa hargeysa sheekh bay leedahay barbari sheekh albalad bay leedahay warniyow dagaal diini ma jiro dagaal siyaasi ah jira dagaalka siyaasiga ama wadaad ka yeelanay soo wadaad la nagu dhac isku wanaan mayno ninkii wadaadee dawlad ku xidhan amba cid kale ku xidhno anaguna wadaadkeegaanu yeelanaynaa uu saxaya ninkan odayga waan u baahan tahay inay hesho Somaliland wadaado aqoonta diimeed ku difaaca wadankooda si lamida sida kuwa reer Soomaaliya kuwaas oo ka mid yihiin Sheekh Bashiir Sheekh Omol iyo Sheekh Cali Wajiis iyo qaar kale oo fara badan culimadaasi wixii danta Soomaaliya ku jirta way xalaalayaan wixii danta Soomaaliya ka soo horjeedana way xaaraantimeeyaan tusaale heshiiska MUU waa looga culimadaasi sida ay uga hadli jireen iyo sida xaaraanta ugu dhigi jireen markii dambe Abiy Ahmed uu ka degay xamarna culimadaasi 360 digri ay wareegeen oo qaarkood waxay sheegeen inay tahay waajibaad diini ah wadamada dariska si kastoo ay diintoodu kala duwan tahay haddana inay waajib tahay inay ku noolaadaan nabad sidoo kale ay yeeshaan xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed markuu u baahan tahay Somaliland culimo noocaas oo kala ah oo ilaashada wadankooda inay hesho midnaanku ku daray buuqana hadda socday la diimeeyay ujeedka laga leeyahay waxay tahay in laga abuuro gudaha Somaliland kooxo abaabulan oo fikrado diimeed xambaarsan haddana laga hortagin khatarteeda leedahay haddaba aan kasii gudbay Soomaaliya gaar ahaan la sanad waxa ka taagan xiisado hor leh oo ka dhashay dagaalka maadri oo ka dhacay deegaanka ee madaxweyne xor waxna u dhaxaysa xiisadani maamulkii fardhiya iyo beesha jaamacsiyaad gaar ahaan jufada deegaanka isku haystaan faqashaniga maamulkii fardhiya waxay u soo jeediyeen ama wuxuu ku amreen bamilashadkii maantirada weeraray deegaanada faqashani inay ka soo baxaan deegaanada qabsadeen si arinta loogu dhameeyo waan wada hadal waana mid ku gacan saray milashadkaasi dan tiimkii fardhiya waxay isku aadiisteen ciidamo hubeysan si loo weeraro milashadkaasi waana mid hadda abuurtay xiisadani saacadii ugu dambeysay hadda waxa ku kala dhaxay labada dhinacba odayaal laqan waxaas laga cabsi qabaa mar kale deegaankaasi inay ka dhacaan dagaalo annagu haddaanu baahsannahay maalintaanu qabiil xabadda ku ridna roob baana helaa shalay hawiyaanu xabad ku ridnay roob baana helay dadka waxaan sheegaynaa aan iskaga taaglaanahayo nagu soo soco waxaad naga heystaanna waxba ha naga siinina
والله بالله ما انت هوية رصاصين اللي روب انا هلي geysta kale warbaahin madax bannaan wareysi waxay la yeesheen aabaha dhalay gabadha yarada 14 jirka ahayd ee maalmo ka hor ay ku kufsadeen laasacanood rag la sheegay inay ka badnaayeen 10 aabahan wuxuu sheegay qoys ahaan inay yihiin qoys xoolo dhaqata ah oo dan yar ah haddana u tegay laasacanood kiiska gabadhiisa isagoona ka diiriyay aabaha xaaladda caafimaad ee gabadha sidoo kale aabahani wuxuu ka tirsaday cadaalad darro laamaha amniga deegaankaasi isagoona sheegay ilaa hadda inaysan waxba ugu qaban wuxuuna ka dalbaday qof walba oo soo gaadha fariintiisa inay ku taageeraan sidii gabadhiisa ay u heli lahayd dhakhtar dibadda ah wareysigana uu bixiyay aabahani ka cabanaya duruufaha caafimaad iyo midda cadaalad darro wuxuu ku soo aadayay xilli labada maalmood ugu dambeysay ay soo tirayeen wararka sheegaya qaar ka mid ah ragga dhibaateeyay gabadhani in laga sii daayay xabsiga kuwaasoo qaarkood baa si dhuumasho looga saaray deegaankaasi waxaana ku jira ragga la leeyahay xabsigoo laga sii daayay ninkan hadda idiin muuqda iska xayaadaya ninkan waxaa la sheegay hayb hoose inay wadaagaan fardhiye wuxuuna ku jira raggii dhibaateeyey gabadhan yarta 14 jirka ugu dambeyntan ay ku saafbeera mawduucan caawi dadka reer Itoobiya maanta oo isniina waxay u dareereen doorashooyin ayaguna soo dooran doona qiyaastii 550 xildhibaan oo ku biiri doona baarlamaanka waddankaasi dadkii maanta codka dhiibtay ka soo muuqday saashadaha waxaa ku jira Abiy Ahmed doorashooyinkan waxay ka dhaceen maanta dhammaan gobolada Itoobiya marka laga reebo gobolka Tigreega waxaana codka dhiibtay 50 milyan oo Itoobiyaan waana 3 meelood meel ka mid ah tirada Itoobiya oo la sheegay inay gaaraan 130 ilaa 140 milyan durba waxaa soo baxay warar sheegaya doorashooyinkan maanta ka dhacay Itoobiya in lagu shubto goobaha sida gaarka ah doorashooyinka lagu shubtay waxaa ka soo dhex muuqday deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaana baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalo fara badan oo ku jiraan kuwa hadda idiin muuqda markii laga hadlayo Afrika doorashooyinka noocan oo kale qof iyo codka meelaha sida saxda ugu dhacdo safka hore waxaa kaga jira Somaliland mowduucan caawininta ayaa ku saafmeeray حليمة سلطان ما حليمة هلكا إيدك حليمة والحليمة سما سلطان ما هلكا إيدك ورح حس بقى هذا حليمة طابو حليمة مسين بتصاوت عوضا صاوت عوضا